waxaa jira waxyaabo badan oo kuu horseedi kara inaad gaarto guulahaaga. Qodobkan waxa ugu muhiimsan waa habka aad u dhaqanto, taasoo noqon karta habka aad bulshada ula dhaqanto ama habka aad naftaada ula dhaqanto. Adigu ma rabtaa inaad samayso guulo badan oo naftaada u horseedi kara xasilooni iyo qanacsanaan? Ma doonaysaa adiga inaad barato waxyaabo badan ay ugu horeyso habka aad ku gaari lahayd guusha? Marka hore inagu soo biir, kanin waa mowduucyadeennii taxanaha ahaan jiray ee aan YouTube-ka idin soo dhigi jirnay. Baro waxyaabo cusub. Aynu dhahno jaamacad ayaa dhammaysay, gaar ahaan kulliyadda dhaqaalaha. Ma waxaad leedahay ma jirto wax igu kalifaayo inaan barto waxyaabo kaloo cusub? Dunida waxaad helaysaa qof haysta shahaadada midda ugu sareysa, istiil ku leh waxbarasho ayaan ku jiraa. Waxaad arkaysaa qof dadaal badan ku bixiya si uu waxyaabo cusub u barto, taasoo ka dhigan waxbarashada inaan laga weynaan ayna tahay waddada guusha, sidoo kalena ay tahay shay aanan dhammaan. Barashada afkaar cusub ama waxyaabo cusub kaa dhigi mayso qof aan u qalmin barashadaas. Dabcan waa lagu kala duwanaan karaa waxyaabahaas, laakiin waxay kuu kordhin doonaan khibrad iyo wax soo saar badan. Baro waxyaabo badan, raadi ashyaa cusub, waxayna ku siin doonaan khibrado dheeri ah. Ogowna, isku mid noqon maysaan qof waxyaabo badan bartay kana shaqaysta iyo adiga oo bartay hal shay ama hal kulliyad. Noqon maysaan isku dhaqaale, isku fikrad, isku aragti. Mar walba iyaga ayaa ka aragti fog. 90% waxyaabaha ay bixiyaanna ha ahaato fikrad ama cutubyo nolosha ka mid ah, waxay u badataa midaas mid guuleysanaysa. Waayo waxay ku dheeryihiin aragtida, wax akhrinta badan, wax raadinta badan iyo barashada ashyaa cusub. Qodobka labaad, baro xirfad cusub. Waxaa jira dunida in ka badan 100,000 oo xirfadood. Maaha muhiimadu sida ay u weyn tahay iyo sida ay u yar tahay, inay kuu qalanto ama inaysan kuu qalmin, intuba maaha. Muhiimadu waa inaad og tahay xirfaddu inaanan lahayn wax caqabad ah oo kaa celin doona ka shaqaynteeda. Imse ayaad magaalada ku arki kartaa oo haysta shahaadooyin sare, haddana dhammaantood kuma shaqeeyaan wixii ay barteen, taasoo ah tusaale ahaan kulliyadaha caafimaadka. Haddana waa bajaajle inta ugu badan ama waa farsamo yaqaan. Xirfaddu ma lahan wado celis ah. Si aad adiga lacag u samaysana, noloshaadana u maareysid, ayaa danta kugu kalifayso inaad barato xirfado cusub. Ogowna inaysan jirin cid noloshaada intay ku soo biiraan kuu maareyn doonaan. Waxaan dhageystay Sheekh Mustafa oo leh adduunka inta ugu badan waxa lagu shaqeeyo waa xirfad. Xirfaduhu way badan yihiin. Waxaad baran kartaa digital marketingka, web designingka, caafimaadka, waxyaabo badan, social or physical marketing, salesman oo noqon kartaa. Xirfadaha ugu badan ee dunida la isku dhaafsado ayaad baran kartaa, walow ay u badan yihiin kuwa tiknoolajiyadda sida graphic design oo kale. Qaar badan ayaan arkay oo leh maxaan u baran waayay xirfado badan. Ugu yaraan waa inaad barataa ilaa dhowr iyo 10 xirfadood, dhammaantoodna maalin bay ku saacidi doonaan, meel ayay kaaga soo bixi doonaan. 3, ha ka xishoon shaqo aan kuu qalmin. Shaqo waa shaqo ma jirto ma u qalanto iyo way u qalantaa midna. Ugu yaraan waa inaad ka shaqayn karto xirfad kastoo ay tahay. Waxaan la kulmay mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho, ka oo bartay kulliyadda health science, gaar ahaan pharmacy amba pharmacology. Wuxuuna ka shaqeeyaa mid ka mid ah maqaaxidaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Wuxuu iga sheekeeyay inuu ka shaqayn jiray pharmacy muddo 2 sano ah, laakiin ugu dambeyn laga ceyriyay sababo tuhunno been abuur ah oo isaga laga sameeyay si shaqada looga ceyriyo. Kadib wuxuu ka shaqo helay maqaaxi, waxa uuna ka noqday cabitaan leh. Ugu dambeyn wuxuu soo jiitay bulsho badan, way la dhaceen cabitaankiisa. Kadibna wuxuu go'aansaday inuu sameysto pharmacy isaga gaar u leh, shaqooyinkiisana sii wato. Waxaynu halkaa ka fahmi karnaa muhiimadda ay leedahay barashada dhowr xirfadood ama dhowr waxyaabood oo aadan ka xishoon ama aadan iskala weynaysiin. Shaqo waa shaqo, whatever ay tahay. Hadduu shalay oran lahaa kama shaqeynayo miis cabitaan, waxay ku noqon lahayd caqalad. Laakiin markuu shaqadii u bartay uu waayay, ayuu bartay xirfad kaloo gaar ah, deedna iyadii lacagta uu ka sameeyey ayuuna ku abuurtay pharmacy isaga gaar u leeyahay. Kuma lihi ka tag wixii aad baratay, laakiin mar walba waa inaad yeelataa plan A and plan B.
Number 4, tuuji maskaxdaada oo abuur fursado badan, isna weydii sida ay macquul ku noqon karto. Looma baahna inaad maskaxdaada ku abuurto waxyaabo badan oo aan faa'iido keenaynin. Isku day inaad maskaxdaada ka shaqaysiiso oo aad abuurto fursado kooban, kadibna aad isweydiiso sideed ku samayn kartaa. Aadna samayso waxaa la yiraahdo planning ama qorsheyn, kuna dabaqdid fikradaha saliimka ah ee ka dhex guuxaya maankaaga. Waxaad qorsheysaa siday u dhici karto, waxaadna isweydiisaa qarashaadka ay u baahan tahay, kadibna qiimeyntaas isku day inaad u bedeli karto fikrad shaqaynaysa oo dhab ah. Kadibna la xiriir cid kastoo aad u malaynayso inay ku caawin karaan, ama aad saami lacageed kula yeelan kartid. Haddii aad aragto inay soconayso, u bedel ficil dhab ah oo shaqaynayo. Haddiise aad aragto inayna soconayn, mar kale fikrad kale abuur una bedel wax soconayo. Number 5, samayso jadwallo gaar kuu ah. Waa inaad ugu badnaan yeelataa ilaa 10 jadwal oo maalinle ah, si aad u ogaato waxyaabihii aad ka dhabaysay ama aad qabatay saacadihii lasoo dhaafay. Waa inaad xisaabisaa saacadahaaga, aadna ogtahay halkay ku bixi doonaan. Tusaale ahaan, subaxii salaada subax ilaa 9 subaxnimo maxaad qaban doontaa? Waa inay silsilada ku leedahay oo ay ku saleysan tahay wax dhab ah oo la qaban doono, sida waqtigaaga jimicsiga, waqtigaaga waxbarashada, waqtigaaga ubadka ama familiga, waqtigaaga shaqada. Waqtiyadaadu waa inay xisaab leeyihiin. Number 6, akhri buugaag badan oo kala duwan. Dunida maanta waxaa yaala buugaag badan oo ku qoran cilmiyo badan oo kala duwan, kuwaas oo ay qoreen rag taajiriin ah iyo kuwa faqiiro ah. Soo isku day maalin walba ugu yaraan 30 daqiiqo inaad akhriso buugaag kala duwan iyo baarisyo kala duwanna aad samayso. Ogow, buugaagta aad akhrinaysid ma ahan wax ku saleysan cilmigaaga. Waxaad baratay IT kuma lihi keliya akhri buug ku saabsan IT-ga, ee akhri buugaagta kale oo cilmiyo badanna ka baro. Taasi waxay kaa caawinaysaa in maskaxdaada koriin badan samayso oo waxyaabo abuurto. Sidoo kale, unugyadaada maskaxduna waxay ka saacidaan inay si heer sare u shaqeeyaan, kadibna aad noqoto qof ay wanaagsan yihiin hal abuuradiisa. Qodobka ugu dambeeya aan ku xasuusiyo inaad muuqaalka like siiso, sidoo kalena aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. 7, anshaxa iyo akhlaaqda. Tani waa hab kale oo iyaduna lagama maarmaan ah. Tani waxay muhiim tahay sidaad ula dhaqanto bulshada. Waa hab ku saleysan inaad soo jiidato macaamiil badan ama milkiilayaasha ganacsiga. Haddaynu si kale u dhahno, waxaad tahay shaqaale. Akhlaaqdaadu waa meesha ugu horeysa ay kaa qiimeynayaan shaqo bixiyaasha. Hadday tan jirinna, way adkaan kartaa inaad qanciso macaamiil badan iyo ganacsatadu. Sidoo kale, way adkaanaysaa inaad yeelato hab maamul shaqo. Sidaas ay qodobkanina muhiimadiisu u wadataa. Guys, muuqaalkeena maanta intaa ayaynu ku soo koobaynaa. Kankiisa xiga intaynu ku kulmayno, nabadiin.